السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركة جرايد مانتا وحكو سابسين هاي لبا أرمض مهمة وأندونا يدي لها من أن هلك كعدينه. شركة جرايد هلك أنه أنشوفنا هذا وأنكو قبانينه ووضن كسويسرلاند بقى الذي سنغالن إن بدن تدكم يقانن أرمها سياسة واحد مدارنا على سويسرلاند إنه آدي أذغنتي حاجة لنا على الرقفرة لدوبية هاي شركة جرايد كسوقيب قال كذلك كسوقيب قال يورت سيجارا وماد علينا يا أرمها إن كان الله يا مانتا وحكم ذا لبا أرمود ورنتي مهم متك كواد رود مبكى أرمها صوماليا iyo duqeynta maanta Soomaaliya ka dhacaysa oo ay dawladda Kenya ka geysanayso arinta duqeynta Kenya oo arimaha Soomaaliya ay ka geysanayso ama koonfurta Soomaaliya especially ay ka geysanayso waxyaabaha aad iyo aad aan u dhaliilayo waxa kamid ah in dad badan oo rayid ah hantidoodii iyo dadnimadoodii iyo naftoodii iyo maalkoodii bay ku waayeen eventii ugu dambeysay oo dhacday oo gudoomiye ku-xigeenkii gobolka Jilib ku dhacday oo kale oo 6 caruur uu ku waayay oo asaga u dhalay 4 asaga u dhalay iyo 2 waalid u yahay waliba arinta ayada ah waxaan rabaa inaan u sheego dawladda Kenya inaysan xaq u lahayn marnaba in ay territory Soomaaliya ay noocaas oo kale tood ku samayso dal xor ah oo muddo 60 sanadood ku dhow xor ah in arinta noocaas ay samayso aad iyo aad baan horta uga xumahay talabaad oo aan rabo inaan ka hadlo waxa weeye arintan Soomaaliya dib u heshiisiinta ee la rabo in la iskugu yimaado 20 August ee hadda bishan August ee foodan ugu soo hayso 2012 annaga oo ah runtii aqoon-yahankii Soomaaliya dadkii dalka wax u bartay iyo dadkii mustaqbalka u ahaa dalka Soomaaliya waxaan halkan ka cadeynaynaa hortii ka soo qaybgal inaan sameyn doono aniga iyo waliba urur aan ka tirsanahay oo aanu rajeynayna hadii Ilaahay inaan waliba guula cadcad oo muuqatana aan ka keeni doono hadii Ilaahay yiraahdo waxaan rabaa inaan halkan kaga mahad celiyo si waliba xushmad iyo sharaf la aan uga mahad celiyo telefishinada ka soo qayb galay shirkan jaraa'id sida M24 oo kale tood Faydaba News amandore.com iyo Mike TV sidoo kale tood isagana shacabka ka soo qayb galay xafladan iyo arintan muxuu ahaa aanu shirkan jaraa'id aan qabtay magacayga waxa la yiraahdaa Dr. Ahmed Xirsi ugaas Maracade waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa fursadda qaaliga ay siiyeen website-yada iyo telefishinada ka soo qayb galay arrinkan isaga. Assalaamu calaykum wa billahi